Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada koorsadeenna AutoCAD Drafting Course Lecture 14 oo aan ku baranayno Creating Blocks ayaan isla arkaynaa. Blockska aad ayay muhiim u yihiin saaxiibayaal inta badan ama si guudba markaad dhahno darawiinada noocyadooda kala duwan iyo naqshadaha markaad samaynaysid waxaa jiraysa waqtiyaa u baahanayso in ashyaa kala duwan inaad shay macno leh ka soo saarto shaygaasna block lagugu bedelo. Block marka faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah in aad yacni isbeddelka aad samayso oo hal shay oo block ahaan aad u samaysatay isbeddel aad ku samayso in kuwa kale oo koobigiisa ah in iyagana lagu samayn doono isbeddelkaas okay oo waqtigaa rabtana waa soo gashan kartaa okay inta darooyinkaas aad ku jirto soo marka blockska si aad u aragto qaybta homeka markaad joogto halkan ayaa imaanaysaa block ay ku qoran tahay halkan ayaa laga create gareeyaa oo aad ku dhufanaysaa create aad leedahay halkaana kasoo gelinaynaa windowgan okay optionka kale xigo waxay tahay inaad imaado qaybta insert block definition qaybta aad imaanay kan ugu horeeya ku dhufanay okay oo create block ah okay soo marka qaanadii oo kale ku imaanayso optionka saddexaad oo aad ku heli karto waxay tahay inaad comment ahaan aad b doorato kadibna sidaas aad u soo geliso saddexdaas qaabba ku dhaganaaw oo yacni fahan soo marka si aan shay block uga dhigno marka waa inaan wax haysataa okay hadda aniga meeshaan box aan rabaa inaan sameeyo okay cafwan box ayaan sameynaynaa boxkaas ayaan waxaan u bedelaynaa marka waxaan u bedelaynaa hadhow block ayaan u bedelaynaa okay soo marka waa ujeedaa okay soo marka boxka hadda waa dhammayn boxka marka meeqa shay waay wuxuu ku inta shay oo soo doorato ku xisaabinaa asaga line waay kaligiis ma dhahayo macnaha fiiri tusaale ahaan hadda labadan polyline uu ku samaysan yahay rectangle waa laba rectangle soo ma afar line waa soo geliyay marka afar objective uu aqoonsan doonaa okay afar aan dhihin yacni laba waa kuwaan ahaa afar laymanka waaye oo caadiga ah labana waxaa waaye waa polyline soo marka lix shay waaye soo marka si aad uga dhigto block marka hore meeshaan aan ku dhufanay sida aan kuu sheegaba halkaan aan ku dhufanay create block ayaa leedahay kadib waxaa leedahay magac u baxso box ayaan iska leeyahay kadib meesha ku xigta su'aal maxay tahay big point waxa waa hadhow waxaan waa iska daleedi karnaa inta darooyinkan aan ku jirno ama inaa isaga mid lamid inaan soo gelinaa rabnaa okay maxaa u baahan tahay marka muuskaada meel ka mid inuu haayo waa shaygan okay soo marka barta laga qaban lahaa oo base pointiga ah halkaan waaya aniga leeyahay halkaasaa u doortay ila soco kadib waxaan ku xijinaynaa select objects ashyaada aad block ka dhigaysid wada dooro internet dheh meeshan maxaa ujeedaa six objects ayaa dooran okay waana saxoo afar line oo aan iskula xiray iyo laba rectangle oo polyline ka samaysan waa lixdaas shay marka saddex option aan meeshan ku baranaynaa kuwan kale tigta ka qaad mid u baranaynaa okay soo marka meesha maxaa ku yaala retain convert to block iyo delete convert to block by default asagaaba saaranba sababtoo anaga waxaan rabnaa ashyaadan aad dooran in blockna looga dhigo meeshaana unitka laga saxdaa hadda anaga millimeter rabnaa millimeter u deysanayna okay darooyinkaygana millimeter waa hyperlink marka maxaa waaye hyperlink waxaa waaye waa link lagu dhufanayo waa oo tusaale ahaan ama website oo kale ku geynayo website aad kasoo geshanay ama macnaha specific location oo computer systemkaada kamid a inaad yacni aad ku samaysato idan waa soo geli kartaa balse annaga uma baahnin okay descriptionka waxaa waaye inaad qeexitaan ka bixiso boxkan cabir noocaas uu leeyahay saas waaye adiga inaad warbixin aad ka bixido oo kale waa waxaan kale usoo laabanaynaa convert to block okay aan leenahay okay hadda marka shayga maxaa ujeedaa haddaata polyline iyo line oo kale haysa hadda maxaa waaye block reference haddaan dhaho hadda aan qabto aan deleedo shaygan waa soo gashan karaa insert halkan ayaa kasoo gelinaysaa waa kan ahaa okay halkan aan kasoo gashana barta aan ka hayana waa meesha u doorta aniga okay aan soconno marka shay kale haddana sameynaynaa okay rectangle iisoo dooro rectangle markaa soo doorato waxaan sameynaynaa marka hal circle ayaan yacni dhinacaas ka saaraynaa marka maxaa waa hadda shaygaa meeqa object uu noqon doonaa waa kow waa laba object uu noqon doonaa create block ii dheh okay create block markaa ii dhahdo waxaa sameynaynaa magaca markaan waxaan u bixinaynaa one oo kale isaga bixinaynaa big pointiga barta laga qabanaa maanta halkaasaan ka dhigaa okay waa ka haystaa mugtahay select objects aan leeyahay iyagoo dhan wada dooro enter dheh maxaa ujeedaa marka two objects ayaa selected la doorta okay markaan retain aan isla aragno retain marka akheera isla fahanno retain muxuu ka wadaa retain wuxuu ka wadaa hadda ashyaadu way kala duwan yihiin shayna hadda midkaan aan ku shaqeynayo waaye shayna markaan deleedo kadib aan soo gashan karaa retainka marka maxaa waaye retain haddaad doorto kanuu copy macnaha kan sidiisuu ku dayn doonaa objectskan hadda dooran sidiisa ayuu ku dayn doonaahoo block ma ka dhigi doono balse markaan tiro haddaan block one aan soo geli maago block uu ii noqon doonaa marka warkaygaas maybe inaad fahmeen balse waa ku tusaa retain aan doortay okay ii dheh hadda markaa dul tago marka maxaa ujeeda maxaa la rabay inuu ahaado sida kan oo kale maxaa la rabay inuu ahaado
block reference okay shay block inuu ahaado balse hadda maxaa ujeedaa still objectigan inuu yahay polyline kana uu yahay circle which means this object kan hadda hor taagan oo screenka noo saaran block ma aha waa bixina marka insertan soo leeyahay laakiin kan kaloo gudaha ku jiro waa block waa kan hadda markaa soo doorto block waa u fiirso ay muuski isaar maxaa ujeedaa block reference okay I hope ina difference fahantay midka koowaad aa ku sameynaysa hadaa retain dhahdo asaga isbedel kuma dhici doono balse isla bloggaas hadaa mar kale soo gelido wuu kugu shaqeynaa oo blog ayuu kuu noqonaa okay so marka waxaan sameynaynaa markaan sidii oo kale haddana waxaan sameynaynaa circle noo soo qabo okay waxaan sameynaynaa marka circle kale ayaan gudihiisa ka sameynaynaa okay okay circle kale marka gudihiisa ka sameyno waxaan sameynaynaa marka blog ayaan ka dhigaynaa magac markaan waxaa ka dhigataa two inuusan ku jirin u malaynaa formation two waaye big pointiga barta aa ka qabanaysa centerka aa ka qabanaa okay centerka markaa ka qab select objectives laba shay waaye laba circle waaye okay waa ujeedaa markaan delete aan dhahno okay delete markaan dhahno muxuu ku dhahaa okay waa baxaba saasuu ku baxa so marka saddexdaas option in la fahmo ayaa rajeynaya okay mar kale marka waxaa abuuraynaa okay polygon oo kale ayaa markaan iska abuuraynaa polygon geesihiisa aan sheego 5 geesood waa pentagon kadib halkaan inscribe it iska dooro dhib ma laha okay kadib waxaa sameynaynaa marka circle isoo door okay circle-ka meeshaan oo kale iska geli marka kadib marka maxaa sameynaa sheegana block ka dhigaa markaan option kale isla baranaynaa ila soco create dheh tree ka dhig markaan tree ma jiro big point halkaan ka qabo hoose okay kadib select objectives meeqa shay waaye laba shay waaye waa pentagon iyo circle okay enter e dheh kadib marka meeshaan convert to block u deysanaa waa isla fahan inaa fahna la rabay kadib waxaa u imaanaynaa labadan option oo muhiim ah ayagana oo yacni scale uniformly iyo allow exploding aad maskaxda u furnaata labada ina ila fahanto muhiim ah wayna ku anfici doonaan yacni scale uniformly haddaad doorto scale waa taqaanaa shay in la kordhiyo waa oo laba jibaarkiisa saddex jibaarkiisa afar jibaarkiisa laga dhigo ama in la yareeyo halfkiis laga dhigo rubuc laga dhigo 8 meelood meel laga dhigo 3 meelood meel laga dhigo in la yareeyo macnaha haddaa marka midaan kuu sheega hadda sawirada aan soo sameynayo dhan scale uniformly ma doorneen okay scale uniformly he jeeg ma saarneen okay haddaa tan jeeg saarta ma ujeedaa hadhow scale-kaada uniform oo noqonaa adna ma maamuli kartid macnaheedu maxaa waaye x iyo y iyo z oo shayga leeyahay shaygan hadda saan x uu u yahay okay saanna wuxuu u yahay y saanna wuxuu u yahay z adiga markaa x marka wuxuu u yahay hogaamiyaha markii kan aad doorato x hogaamiye ahoo x direction-kan double haddaa u gelisid labada kale automatically waxay qaadan doonaan double oo shayga x double ka dhigtay oo saana u weynaaday automatically y iyo z na double ay noqonayaan oo adi ma maamuli kartid oo ma dhigi kartid dhinacan oo kale bisa rabtaa inaad double ka dhigto marka ma furna control wax lama furna scale uniformly ma doorta ha allow expanding waa ka dhaafay mujeeda hadda ila soo allow expanding na check ma saarin okay aan dhahay okay marka shayga waa soo gelinaa marka hadda insert yaa leeyahay shayga kanoo ahay sax hadda waa hayaa soo ma halkaan ii dhig halkaan markaa ii dhigto kanoo kale iska dili halkaan markaa ii dhigto marka ama tusaale ahaan iska bixi hadda waxaan rabnaa qaab kale insert loo sameeyo inaan ku tuso saa markeed hadda more options ii dheh waxaa sameynaynaa midka aad soo gelinaysa halkaan ka dooree boxka ma one ma two ma three ani hadda three yaa rabaa three marka maxaa ujeedaa meeshaan ila fiiri meesha aan rabay meeshaan waay maxaan ku dhahay control adima samayn kartid oo horaa waxaa u daaratay ama jeg aa u saartay scale uniformly waxaana ku dhahay x ayaa hogaamiyaha ah x qiimaha ah sida ayaa labada kalena automatically qaadan doona fiiri two aan geliyey y e z maxaa laga dhiga two haye three aan geliyey y e z maxaa laga dhiga three mana maamuli kari oo hadda meeshaan waa ujeedaa active ma aha ma shaqeynayo haddaad jeg saar maba awoodiba controlkeeda malihi so marka maxaa ujeedaa hadda saddex jibaar ayuu wada noqdee double-ka udaa marka suka isla fiirino shayga marka okay waa ujeedaa exploding maxaa ujeedaa haddaata maxaan ku dhahay allow exploding na jeeg ma saarayna aan ku dhahay ayadana haddaada saarin waa kana ma maamuli karta haddaa saari lahay la kalka hadda waa maamul laha okay ii dhe marka maxaa ujeedaa marka shaygan saddex jibaar waa okay waaya marka mar kale pentagonka isoo door waxaan ka dhigaa markaan eidaan ka dhigaa okay enter ii dheh so halkaana waxa soo iska ah saan soo maaha okay kadib mid kaloo 8 ayaan dooranaa okay
marka meeshaan maxaa waaye create ida markaan markaan waxaa u bixinaa meeqa maraa tirada 4 ina 4 waaye sax so marka big pointiga markaan halkaan ka dhig okay kadib select objectives laba shay le waaye enter ida kadib marka meeshaan scale uniform hadda waa ka qaadaa ila fiirso ani marka hadhow maxaan awood u yeelan doonaa inaan maamulo aniga haddii hal x keligeed inaa scale ka dhigaayo inaan saddexdaba israacinaayo inaan saddexdaba kala duwaayo anay igu xirnaa doontaa controlga okay allow exploding ii dheh exploding aan kuu fasiro hadda shaygan hal elementi waayo oo hal block waayo ma kala furna okay exploding marka kala fur waayo command lagu sameeyana x waayo waan isla arkaynaa waa kala furaa macnaha asoo hal block ahay aan kala furaa hadda kan muxuu ka samaysnaa afar line iyo laba polyline oo rectangle ah sax sidiisaan kusoo celin doonaa okay marka hadda maxaan ku dhahay scale uniform lina jecta ka qaad inaan maamulaan rabaa jecta ka qaada daarta inaan maamusho kanna maxaa waaye allow exploding kala furitaanka aqbal okay aan leeyahay hadda marka maxaan sameynaa insert aan leeyahay more options aan dooranaa afar aan dooranaa kan afraad so marka maxaa u jeedaa marka meesha data iga xirneed oo active-ka aan ahayn hadda maxay tahay active marka haddaa jeeg saar hadda maamulka anaa leh maamula markaan aan ligu wareej marka maxaa sameynaa sidii oo kale double haddaa double sababtoo ah uniform aan tigta saaran inta ka fiiri okay saddex haddaa ka dhigo haddaa afar ka dhigo waxa ka dhigo okay haddii kale waxaa sameynaa one maahano jeegtaan ka qaadaa marka maxaa sameynaa x dhinaceeda double ka dhigaa leeyahay hadda sawirkan muxuu noqon doonaa u fiirso sawirkan hadda inta ma yaalla haadhe hadda markaan wuu isla egyahay waxaan sameeyey marka dhinaca x ayaa waxaa u sameeyey double dhinaca x uu laba jibaar u noqon doonaa okay ide exploding kana mujeeda hadda way ii shaqaynay laakiin data active ma ahayn okay ayaan leeyahay soo ma halkaan idig what is the difference shaygayga muxuu saan u noqday shaygayga wuxuu saan u noqday x iyo y z markii la fiiriyo dhinaca x ayaan double u dhahay okay mar kale waxaa sameynaynaa insertiga akhyaari maanta in inta kasoo doorto waajib maaha i ayaa dhihi kartaa inserti ah kadib shayga halkaan kasoo dooranaya afraad soo maaha markaan allow exploding ayaa leenahay allow explodingka marka muxuu kaa rabaa shay markaa kala furaysid waa in sizekiisa mid walba uu lahaadaa tusaale ahaan hadda aniga haddaa laba dhaho kanna aan dhaho tusaale ahaan saddex aan dhaho explodingna aan doorto makaa yeelayo yacni shaygii ama inaa dhowel ka wada dhigtaa ama inaa wan ka wada dhigaa okay so marka cabirkiisa cadiga kusoo xejinaa explode aan leeyahay okay explodeka waa ogolaad mugtahay so marka barta adiga meesha adaa cayimaa marka barta meesha ka dhigaysid okay halkaan oo kala doorto shaygan sidiisi waa sidiisa hore waa okay explodeka marka maxaa waaye fiiri explode markaa jeeg soo saaray maxaa ujeedaa kan waa polyline kanna waa polyline okay so marka sidaas waa marka explodingka si kale markaaye kan hadda exploding allow ma saarnayn mugtahay sidiisa asoo ahan kala jebinaa ama tusaale ahaan kanaa ku habboon okay sababtoo kan waa scaled waa already okay so marka waxaa explode x aa la taabtaa interaa la dhahaa shayga explode ku samaynaysa waa lagu dhuftaa enter sii dheh maxaa ujeedaa markaan waa ujeedaa polyline kana maxaa ujeedaa polyline okay kan marka kan oo boxsa allow ma saarnaay may maba saarnin mugtahay explode inaan dhahaa isku daya fiirso marka waxa dhaco explode dheh select objective dhah waa kan ahaa haye enter ii dheh muxuu ku dhahay wuxuu dhahay could not be exploded shaygan lama kala furi karo fiina wiita ma kala furi karto marka optionada inaad iska barato iyo qaabka wax loo saxayo sidaasay muhiim u tahay marka waxaan rajeynaa inaa ila fahanteen exploding iyo scale iyo barta laga qabanaayo iyo waxyaalahaas inaa isla fahanaa rajeynaa wax yar marka waxaa rabaa inaan ku daro edit say ugu samayn karaa waxyaalahan oo kale hadda iska tir waxaa sameynaynaa marka hadda tusaale ahaan harka noo soo qabo okay harkahan marka waxaa ku sameynaynaa maxaa dhahay laba circle oo kale ayaan halkaan saaraynaa circle kalena halkaan ama kan le copy noo soo dheh halkaan ka qabo halkaan kale ku koobiyey okay intaas kadib marka shaygana block inaan ka dhiga rabaa shaygan hadda meeqa shay waa laba circle iyo hal arc okay saddex shay la rabaa inuu ka dhigo 3 objectives waa inuu yidhi hal rabaa markaan waxaan leeyahay waa 5 waa okay barta aan ka qabanayo halkaanaan ka dhigaa okay barta aan ka qabanayo ila soco hadhow editka aan samayn doono bartaan waa barta aan ka qabtay ila soco convert to block waa ii saxan tahay tan inta badan inaad jack saarnaa kuu fiican allow exploding kana iska dheh okay kadib objectives ka dooro waa saddexdan shay kadib waxaa dhahdaa enter okay marka waxaa sameynaynaa okay ayaan leenahay okay kana marka waxaa ka sameynaa copy badan okay c ii dheh kana ii door si oo iigu toosnaadaan okay
afartan adiga afartaas iigu ekey so markaa rabto edit inaad dhahdo edit caadi meeshan waa ku qori kartaa okay edit caadi inaad qorto ama optionkaanaad dooran kartaa okay maxaa la sameeyaa block editor okay waa kanaha block editor okay halkaana kasoo doorane so marka waa isku meesha haddaa rabtana kan ayaad dooran kartaa okay block editor aa dhehe midkee wax ka bedele marka 5 aan leeyahay shanaad kan soo maaha okay le marka faa'iidada uu leeyahay rabad inaad kuso halkan blogan bedeli doonaa inta kale koobiga aan ka sameeyo isbedelaan u fiirso waxa rabtaa marka bedele meeshan fiiri wax yar aan ku tusaa marka base pointiga barta aan ka qabanayo intee ahayd halkaana ahayd sax barta aan ka qaban halkaas soo base pointiga bedela halkaana u bedela u fiirso halkaasaa ka dhigi maxaa la saaray calaamad oo shooting camal ah calaamad sham shooterka ala saaran mid halkaasaa waxay ku tahay base point u fiirso isbedel waa edit gareey waxaan kale wax ka bedelaa home ide maxaa la dhahay wax kale circle kale ku dara tusaale ahaan circle kale ayaa meeshan dhexda ku dara ama waxa sameeysaa kan soo qabo kuwa mid kamid ii soo qabo control c ide halkaan ka soo qabo bartaas midpointiga ii dhig okay hadda maxaan ku daray circle kale soo kuma darin okay marka artay marka inaad ka baxdo oo hawshaada iyo editingkaada marka dhameysto waxa sameynay close block editor aa leedahay close block editor marka wuxuu ku leeyahay save the changes to 5 block 5 isbedeladan aa sameysay u save garey okay marka waxaa leeyahay discard ayaa dhada oo waxba ha bedelna dhigi karta daartana save ana marka save inaan dhahaa raba u fiirso marka waxa isbedelay save ide maxaa ujeedaa hal shay waa saddexda kale maxay qaateen editingkiisa ayuu qaatay soo marka akhyaaray ahmiyadaas oo leeyahay lectureka inuu dheeraada ayaa rajeynaa videoga meeshaas kusoo gabagabeynaa waxaa noo balana lecturekan xiga insha allah